بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa maxamed oo ku magac dheer nero. waxaan jeclahay insha allah tacaala inaan video idin dubo oo ku saabsan oracle language. So insha allahu tacaala daawasho wacan aan dhegeysto wacan oo gartaan malinaa qaabka koorkan waa diyaarsan yahay. screenka waa kaa ku koor gareynaya, kan kalena waxa waaye already waa diyaarsan yahay meeshan. Okay, first of all waxaan rabaa inaan galo user. So password waxa waaye iska taagan almost waxaa access gareeyay maxaa la ii sheeg waa small letter y password, and then okay now first of all waxa waaye halaya select and start from employee. example waxaa rabtaa employee inaad aragtid maxaa la ii sheeg tablekiisa. si loo waxay waa select start from employee leedahay, then bracket ka xira waxa kusoo baxaysa markaa employee number, employee number, employee name, job, mgr, hire date, commission, blah blah blah. so waxaa rabaa marka inaan u sameeyo hadda employeegan, waxaa rabaa inaan qaab order ahaan u sameeyo oo alphabetical inaan u sameeyo. example-ka ugu horeeya waxa waaye select from employee order by ename waxa waxaan lahaa employee name one. Always waxaan select from start from employee, then enter. waxaan marka waxa ii order gareysaa qaab, waxay igu sameysaa by ename, waxay igu sameysaa qaab oo waxa waaye tw ya hore waxa hore maxaa la ii sheeg t ya hore. okay, msse maxaa la waa ename-ka waa kan ku jiro waa mss waxa waaye intan waxa waaye si kala hore alphabetical-ka ujeedaa marayna. okay, second thing waxay tahay marka waxaa rabaa marka inaan sameeyo qaab caadi ahaan iska waxaa la describe waxaa la ayadoo alphabetical-ka ayadoo la fiirinin. alora marka waxaan dhahaa marka meeshan select and I from employee and I, then waxay ii order gareysaa maxaa la ii sheeg ename ayadoo aanan fiirinin maxaa la kala horeyn. ayadoo aanan fiirinayn maagtan aad ma jido bd hoose jirtaa, cd intay jirtaa, f koray jirtaa, inta waxaa jirtaa maxaa la keeda koray jirtaa waa gartaa maraynaa, eeda koray jirtaa, labadan isku mid waaye. okay, kor aadna xeer st koray jirtaa, mt hoose jirtaa. so macnaha markaa ma fiirinayo sida markaas kala horeynta ma la fiirinayo, waxuu fiirinaya kaliya just waxaa u baahana maxaa la ii sheeg. okay, I don't know, clear screen inaan dhaha waaye clsr. okay, then waxaan leeyahay marka second example wuxuu yahay waxaa rabnaa marka inaa waxa la yiraahdo pseudo column waxaa la example select waxaan dhahday ename maxaa ka xagee ka horta inaa aragtid waxa waaye. okay, waxaa rabtaa employee describe idin leeyahay, waxaan dhahay describe employee qaab ku samaysan yahay waa employee number, ename, job, mgr, hire date, salary, commission, and maxaa la department number. so waxaan rabaa marka salary inaan ku dhufto 12 waa gartaa malaynaa meeshan waxa waaye salary waxaa ku dhufsan 12 waxaana waa alwan macnaha sanadkii markii macnaha salary-ga total ahaan waxaa ku dhufsamaysa maxaa la 12 marka commission-ka loo fiirinayo. so waxaa leeyahay marka select waxaan dhahay ename. okay, waxaa ka bilaabay employee number, ename, then maxaa ku xiga maxaa la job, then maxaa ku xiga maxaa la intaan ku fiirinayo mgr, then maxaa ku xiga maxaa la hire date, then maxaa ku xigo maxaa soo hormarinaya commission,
then waxaa ku xiga waxaa la department already department number soomali sheegin department number comma salary comma salary oo ku dhufsan yahay salary oo ku dhufsan 12 salary oo 12 maxaa u bixinaynaa marka waa annual macnaha waa sanadle salary-ga ee sanadlaha waxa ku dhufsan alla intaas lacag ku dhufsan xagee ka bixinaynaa marka from employee salary xagee ku jira from employee then waxaan dhahaa marka waxaa order iigu samaysaa qaab sida iskugu xigo order iigu samaysaa by qaab sida igu xigo annual sanadlaha lacagta waxay igu samaysaa qaab order ah macnaha qaab waxay igu samaysaa order ahaan macnaha kala horeyn inay xisaabta ay kala horeyso example waa kana hadda inta idin weyneyna okay okay to validate commission okay that's the number name okay waa kana annual salary waa kana annual salary ga ujeedina malena waa kana annual salary ga waa 739 ka weyn 7 ka xigto agarta malena si kala weyn event okay what about second example muxuu yahay second example muxuu noqonaa okay second example muxuu noqonaa tano same way same okay meesha marka waxa waaye by 5 order by 5 anida rabaa inay idin sheegto markaa socto 2 daqiiqo okay by 5 macnaheedu waxay tahay select markaa dhahdo e-name oo aan dhaho employee number and dhaho example commission okay comma and dhaho hire date comma academic employee department number comma salary okay oo ku dhufsan salary comma salary oo ku dhufsan 12 oo annual lacagta sanadlaha tablekan waxaa la columnkan samaysana waxaa la pseudo column aan la pseudo column employee order waxaa lagu dhahaa marka order by 5 okay by 5 adoon u fiirinayn markaas kala horeyn adoon u fiirinayn okay select e-name comma employee number comma commission comma job comma okay salary comma salary times 12 okay salary again from employee order by 5 adigu aadan u fiirinayn qaab afantamaana aadan u fiirinayn qaab 5 marka macnaheedu waxay tahay in meeqa column inta nooga muuqato meeqa column 1 2 3 4 5 6 right okay 5 oo ii soo baxay example haddii aan sameeyo example hadda example same and select from now select the e-name okay employee number okay department number commission and salary lagu dhuftay 12 oo ay tahay annual lacagta from under employee then under order by 8 ayadoo order la-aana error soo baxay
and maxaa ku qoran order by item must be the number of the select list intaan number meesha aan select garaynayso inuu numberka inuu noqdaa qasab ay gartaa marana ama at least macnaha sababtii meeshan ay 6 ku noqoto waxay tahay sababta meeshan 6 ay ku noqoto waxay tahay pseudo column waa wuxuu ka generate garaysmay meeshan ku hoos laakiin haddii aanu pseudo column aanu table kan hadda create garaysmay maxaa la pseudo column aanu pseudo column create garaynin 5 ma dooran karo ay gartaa marana 1 2 3 4 hala waa 1 2 3 4 5 way soo baxeen more than 5 haddaan meeshan 6 aa geliyo oo pseudo column aanan sameynin same like that errorkan oo kala soo baxay waa maasantiin kulan dambe xiisan insha Allah